وعنا wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa marqaati TV kusoo dhawaada barnaamijkana falanqaynta xogta caalamka waa 20 bisha January sanadka 2022 daawada barnaamijkan qaybtan qodobada aynu diradda ku saari doonno haddii Allah awood leh oo raali ka noqdo waxaa kamid ah qaramada midoobay oo rajo wanaagsan ka muujinaysa in la soo afjaro colaadda ka aloolsan qaybo kamid ah wadanka Ethiopia waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee wadankaasi daawadayaal barnaamijka sidoo kale waxaan idinku soo gudbin doonaa madaxweynaha wadanka Iran oo si kulul uga hadlay cunaqabateynta dhaqaale kuna sheegay in ay tahay nooc cusub oo madax banaani ah hadal uu ka jeediyay baarlamaanka wadanka Ruushka ayaan barnaamijka ku falanqeyn doonaa sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa shirkad soo saarta diyaaradaha dagaalka ee wadanka Turkiga oo qorshe weyn isla markaana amaka ku noqon doona qaar kamid ah dalalka aadka ula xifaaltama Turkiga ka dhawaajisay diyaarada casri ah oo la soo saarayo iyo bil walba oo laba diyaaradood la sameyn doono barnaamijkeena ayaynu ku eegi doonaa Ankara waxa martin gelin doontaa sidoo kale shir ay leeyihiin ganacsatada Turkiga iyo Masar shirkan oo wax badan ka bedeli doona xiriirka labada dal ayaan idin haynaa Biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga dhabarjab weyn ayay kala kulmeen aqalka sanadka daawadayaal qodobadan ayaan barnaamijka ku falanqeyn doonaa mar kale soo dhawaada fadlan haddii aad nagu cusubta channelka subscribe inoo saar sidoo kale fura gambalaalka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya mahadsanid aynu ku bilowno iyada oo colaad xoogan ay ka jirto wadanka Ethiopia isla markaana dagaalo qaraar ay ka soconayaan kuwaas oo u dhaxeeya ciidanka dawladda Ethiopia iyo TPLF ayaa haddana waxaa soo baxaya rajooyin waaweyn oo laga muujinayo in la soo afjiro colaadaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in gabi ahaanba la soo afjaro colaadda waqooyiga Ethiopia ka socota muddo dhan 14 bilood xogayaha guud oo qadka telefoonka kula hadlayay wakiilka midowga Afrika u qaabilsan geeska Afrika Obasanjo ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in kadib muddo sanad ah oo ay socdeen dagaallo culus oo saameeyay malaayiin qof oo ku nool guud ahaan dalka Ethiopia iyo gobolka waqooyi intiisa kale in hadda ay u muuqato dadaalo nabadeed oo lagu soo afjarayo colaadaasi waxa uu ugu baaqay dhammaan dhinacyada dagaalamaya inay si degdeg ah ugu dhaqaaqaan joojinta colaadda taas oo tallaabo muhiim ah oo loo qaaday noqonaysa jihada saxda ah ee nabadeynta isagoo intaasi ku daray Anthony Guterres inay dhinacyada halka sano iyo dheeraadka ah ku dagaalamaya waqooyiga Ethiopia ay ka faa'iideystaan fursadda fiican ee lagu gaari karo xal nabadeed rajadan ka sokow haddana waxaa soo baxaya aag cusub oo dagaal oo u muuqda in xaaladda wadanka Ethiopia ay kasii dari doonto kadib markii amxaarada lagu kari la'yahay dagaalka joojiya isla markaana wadahadalka qayb ka noqda oo in lala hadlaa TPLF ay ka soo horjeedaan sidoo kale waxa ay diideen amxaarada in hubka laga dhigo maleeshiyaadkooda oo si xoogan hubka u helay kuwaas oo khatar ku noqon doona gobolka amxaarada waxay u muuqataa hadda dawladda Ethiopia iyo sidoo kale maamulka amxaarada dhexdooda in ay ka tafatay oo xiisadda ka dhaxaysa dhinacyadan ay noqon doonto mid xitaa aakhirkii keenta gacan ka hadal falanqaynta xogta caalamka ayaa la socotaan marqaati TV ayuu idinkaga imaanayaaye markana madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi waxa uu sheegay in cunaqabateynta dhaqaale ee la saaray ay tahay dalkiisa qaab cusub oo madax banaani ah waxaana booqasho 2 maalin ah uu ku tagay Ruushka taas oo u bilaabatay Arbacadii shalay kadib casuumaad uu ka helay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin khudbad oo ka horjeediyay maanta baarlamaanka Ruushka Raisi wuxuu intaasi ku daray in iskaashiga u dhaxeeya Ruushka iyo Iran uu kor u qaadi doono ammaanka gobolka waxa uu sheegay in siyaasadaha Washington ay ujeedadoodu tahay in lagu wiiqo wadamo madax bannaan oo gudaha ah iyada oo qalqal gelinaysa Raisi waxa uu tilmaamay in dalkiisa uu fulinayo dhammaan ballanqaadyadii lagu gaaray heshiiska nuclearka isagoo ku eedeeyay Washington iyo Europe in ay jabiyeen ballanqaadkoodii Raisi ayaa shalay kulan la qaatay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxaana kulankaas ay kaga wada hadleen faylka gobolka iyo sidoo kale kuwa caalamiga ah oo ay ku jirto wadaxaajoodka Vienna Raisi sidoo kale waxa uu ka hadlay iskaashiga istiraatiijiyadeed ee muddada fog u dhaxeeya labada dal iyo sidoo kale in uu goobjoog ka ahaado saxiixa dhowr heshiisyo iskaashi oo wada jira booqashadan ayaa noqonaysa tii saddexaad oo uu madaxweynaha dalka dibaddiisa ugu maqnaado oo madaxweynaha Iran tan iyo markii uu xafiiska la wareegay bishii August ee dhaaftay balse waa tii ugu muhiimsaneyd booqashadan waxaana ku weheliyay safarkiisa wasiirka arrimaha dibadda dhaqaalaha iyo sidoo kale wasiirka qaabilsan dhanka shidaalka booqashadan waxay ku soo beegantay xilli Iran ay qudaha waaweyn oo uu ku jiro Ruushka ay yeelanayaan wadahadallo lagu soo noolanayo heshiiska barnaamijka nuclearka ee Tehran waa markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2017 oo madaxweyne Iran uu booqdo Ruushka oo xiriir siyaasadeed dhaqaale iyo militariba la leh Tehran daawada qodobadan aragtidaad ayaad ka dhiban kartaa weli barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan
markhaati t v ayuu idinkaga imaanayaa meel walba aad joogtaan wakhti wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. markana bal aynu eegno Turkiga. Temel Kotil oo ah maamulaha guud ee shirkadda Turkiga ee Aerospace Industry TOSA ayaa sheegay in diyaaradda Hurjet ee lagu farsameeyo gudaha waddanka Turkiga ay duulimaadkeedii ugu horeeyay samayn doonto 18 Maarso 2023, halka 2 diyaaradoodna lasoo saari doono bil walba laga bilaabo 2025. isagoo ka jawaabaya su'aalaha wariye ka tirsan Anadolu kuna saabsan mashruuca Hurjet iyo habka wax soo saarka taxanaha ah, Kotil wuxuu ku daray in faahfaahinta la xiriirta diyaaraddan tababarka iyo sidoo kale diyaaradaha weerarka fudud lasoo bandhigi doono 1 ilaa 2 bil gudahooda. waxa uu sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay u soo saari lahaayeen noocyada diyaaradda Hurjet oo ay ku soo bandhigi lahaayeen muddo bil ama 2 bil gudahooda ah, isagoo xusay inay bilaabeen hawsha mashruuca diyaaradaha ee Hurjet sanado ka hor intii aanu qaranku qaadanin go'aankan, iyada oo ay barbar socoto qorsheynta si loo soo saaro diyaaradaha dagaalka ee qaranka. marka la eego ujeedada loo soo saaray diyaaradda Hurjet jet, Kotil ayaa xaqiijinaya inay doonayaan in diyaaradda la xusay ay noqoto sii socoshada diyaaradaha tababarka Turkiga ee Hurgus, isagoo xusay in Hurjet ay ka yar tahay oo ay ka qaalisan tahay diyaaradda lagu magacaabo Hurgus, taas oo siinaysa faa'iidooyin doorbidad iyo sidoo kale in si gaara loo daneeyo. isagoo hadalkiisa si wata waxa uu yidhi labaduba waa ay ka dheereeyaan dhawaqa, waxaana loo kala saaray isku qayb, balse farqiga u dhexeeya waa cabirka oo keliya. soo saarista diyaaraddan waxa ay ku timid talo ka timid madaxweynaha warshadda difaaca Turkiga Ismaaciil Demir. waxa uu sheegay in shirkadda Turkiga ee TOSA ay mudnaan gaara siisay dhammaystirka mashruuca Hurjet, isla markaana ay shirkaddu ku howlan tahay sidii looga faa'iidaysan lahaa waayo aragnimadii ay ka heleen marxaladaha wax soo saarka ee Hurjet, khibradahaasna loogu wareejin lahaa diyaaraddii dagaalka ee dowladda Turkiga ay yeelanayso. dhinaca kalena Kotil waxa uu sheegay in sida qorshaha uu yahay ay socoto shaqada ku saabsan soo saarista diyaarad dagaal oo heer caalami ah oo qaranka uu leeyahay, waxaana tirada injineerada ee kooxda ka qayb qaadanaysa mashruucan ay kor u dhaafayaan 1,000 qof, taas oo muujinaysa in tiradaasi ay kor u dhaafayso ilaa 3 jeer. waxa uu intaasi ku daray in dadaaladii ay sameeyeen kooxda shaqaalaha ee Hurjet iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ay guul ku soo dhammaadeen, islamarkaana ay kooxdan ku maamuuseen guddiga fulinta ee warshadaha difaaca Turkiga. waxa uu tilmaamay in shirkadda Turkiga ee TOSASH ay qorsheynayso in sanadka ugu horeeya ay soo saarto 6 ilaa 7 diyaaradood oo Hurjet ah, kadibna ay wax soo saarkeeda gaarsiiso 24 diyaaradood marka la gaaro sanadka 2025. weli arrimaha Turkiga ayaynu ku guda jirnaaye, Ankara waxay isku diyaarinaysaa inay martigeliso shirka ganacsatada Turkiga iyo Masar maalinta Jimcaha ah oo dabcan maalinta beri ah. wakaaladda Anadolu waxay sheegtay in Rifat Hasarkilok oo ah gudoomiyaha xiriirka rugaha ganacsiga iyo sariflayaasha ee dalka Turkiga uu ku qaabili doono xarunta dhexe ee xiriirka wafdi ganacsato Masaari ah oo uu hogaaminayo Ibrahim Al-Arbi oo ah madaxa xiriirka guud ee rugaha ganacsiga Masar. labada dhinac ayaa lagu wadaa inay ka wada hadlaan sidii loo horumarin lahaa xiriirka ganacsi iyo kan dhaqaale ee labada dal. tallaabadan ay qaadeen dhanka Masar waxa ay timid kadib booqasho tan la mid ah oo uu ku tagay mas'uulkan Qaahira 28 Sebtembar. isaga oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Anadolu waxa uu sheegay in mugga maalgashiga Turkiga ee Masar uu kor u dhaafay $2 bilyan. waxa uu intaa ku daray in mugga isweydaarsiga ganacsiga u dhexeeya Turkiga iyo Masar uu si joogto ah u kobcayo si waafaqsan mabda'a heshiiska ganacsiga xorta ah. waxa uu tilmaamay in Masar ay ku sugan yihiin ku dhowaad 200 oo shirkadood oo laga leeyahay dalka Turkiga, taas oo uu tilmaamay inay bixiyaan ilaa iyo 68,000 oo shaqo ah. mugga ganacsiga u dhexeeya Ankara iyo Qaahira ayaa gaaray $5.8 bilyan 12 bilood ee u horeysay sanadkii hore, taas oo gaartay kobac 35% marka la barbar dhigo isla muddadaasi 2020. ugu dambeyn haddii aynu eegno Biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga dhabarjab weyn waxa ay kala kulmeen aqalka sanadka. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo xisbigiisa dimuqraadiga ayaa Arbacadii dhabarjab weyn waxay kala kulmeen aqalka sanadka Mareykanka kadib markii xisbiga jamhuuriga ay hor istaageen sharciga ilaalinta xuquuqda codbixinta, kaas oo ay muddo sanad u ololeynayeen. dimuqraadiyiintu ayaa diyaar u ahaa inay isla markiiba u codeeyaan isbeddel lagu sameeyo mid ka mid ah xeerarka sanadka si ay uga gudbaan habraaca filibasterka oo ay u arkaan in uu caqabad ku yahay hindisahooda si ay ugu ansixiyaan aqlabiyad fudud sharciga ilaalinta xuquuqda codbixinta.
laakiin beddelka sharcigan ayaa sidoo kale ku dhammaaday guuldarro maadaama Biden uu awoodi waayey in uu ku qanciyo 2 senator oo xisbigiisa ah. Hogaamiyaha aqlabiyadda Senadka oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa isku dayay in uu dib u habeeyo qaanuunkan isagoo hoos ugu dhigay tirada ansixinta xeerka 50 cod oo markii hore ahayd 60 cod. Laakiin Kristen Sinema oo laga soo doorto gobolka Arizona iyo Joy Manchin oo isna laga soo doorto gobolka West Virginia ayaa diiday in ay la saftaan xisbigooda dimuqraadiga ayna bedelaan habraaca sanadka, taas oo jamhuuriga fursad u siisay inay si fudud u laalaan hindisahan. Labadan sanad ayaa sheegay in ay taageersan yihiin sharcigan laakiin aysan diyaar u ahayn wax ka beddelka xeerka sanadka. Madaxweyne Biden ayaa bayaan uu soo saaray kadib guuldaradan ku yiri, maamulkayga weligii ma joojin doono dagaalka ilaa inta looga hubinayo xaqa codbixinta wax kasta oo ay nagu qaadato. Aqalka sanadka oo ka kooban 100 xildhibaan ayaa hadda u kala qaybsan 50 iyo 50, walow dimuqraadiyiintu ay leeyihiin aqlabiyad ciriiri ah maadaama madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ay leedahay codka jebinta barbardhaca. Sharciga xorriyadda codbixinta oo ay dimuqraadiyiintu ugu magac dareen xeerka John Lewis wuxuu maalinta doorashada ka dhigi lahaa fasax qaran, wuxuuna muhiim ugu ahaa doorashada soo socota ee dabayaaqada sanadkan ee loo yaqaano midterm, taas oo dimuqraadiyiintu ku rajo weyn yihiin inay ku guuleystaan aqlabiyadda labada aqal. dawadaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo barnaamijka falanqaynta xogta caalamka aad kala socoteen Markhaati TV. wanaga intaas barnaamijka mid ka xigeentan ku kulmi doona. nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.